xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxay weerar qaraxyo ku qaadeen garoonka diyaaradaha degmada Buuloburdo ee gobolka Hiiraan halkaas oo bilii la soo dhaafay uu ka socday dhismo xoogan qaraxan ayaa la sheegay inuu geystay burbur xoogan oo soo gaaray hubinta iyo sugidda rakaabka diyaaradaha ee garoonka degmada Buuloburdo kaasi oo shalay dhismihiisa la soo gabagabeeyay inta la ogyahay hal qof ayaa ku geeriyooday halka saddex qof oo kale ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow garoonka oo aan helayno garoonka uu ka dhacay qaraxa ayaa waxaa si wada jir ah uga howlgalay ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa Jabuuti ee qaybta ka ah Amazon ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa weerarkan kadib howlgallo ka sameeyay duleedka degmada Buuloburdo ee gobolka Hiiraan in xalay ka dhacay ashiranti magaalada Buuloburdo anigoo ku hadlay magaca gudoomiyaha degmada Buuloburdo waxa xalay soo galay qoliyooyinkii Al-Shabaab oo si dhow Malaysia magaalada ku soo galay garoonkii magaalada Buuloburdo gudaheedana galay kaasoo laga dhisay daar loogu talagalay inay dadku ku nastaan marka ay yimaadaan ama marka ay sugayaan ay diyaaradda ku sii sugaan oo cusbeyd oo qolada Nisa Foundation ay dhistay taasoo gabagaba ahayd oo dhamaatay la qalabeeyay xilwareejintii iyo xalagoyntii ay ka dhineed marka arintaas ayaa xalay dhacday meeshii waxay ku xireen bambooyin daartii way burburtay laamiyadii kore wada baaba'ay kuraastii taallay sidoo kale marka saakay aan ku baxnay matoor meesha yaalay oo hoostiisa ayagana ay wax geliyeen ayaa waxaa dhacday in dadweynihii mid ka mid uu soo jiiday oo yiraahdo matoorkan waa fiican yahay malena oo fiiriyo markii la baaray garoonka oo diyaaradiina la wada sugayay qarax baa meesha ka dhacay matoorka hoostiisa ku jiro culayska matoorka uu dhaliyay qaraxii ayaa waxa ku dhaawacmay 5 qofood midkii soo jiiday ayaan ugu darnaa oo halis ah insha Allah dadaal dheeri baan sameynay haddana waxaan jecelnahay in xamar loo soo qaado dhaawacii markaas oo ku dhacay bulshada Buuloburdo dadaalkaasina Ilaahay baan Ilaahay ku mahadsan insha Allah taala garoonkiina insha Allah hadda kadib insha Allah in la ilaaliyo oo amaankiisa si fiican loo sugo ayaan farnay bulshada amaanka qorsheeyay oo Jabuutiyaanka u weyn u joogay meesha ciidanka Jabuuti oo soo sabaara saakayna ku mashquulsanaa ayagoo baaritaankii dhameeyay markaas gudihiisana ay arintan dhacday marka insha Allah Ilaahay waa hadiis ah insha Allah Ilaahay kuwa dhibaatada gaartayna Allah ha bogsiyo ku dhaawacmayna Ilaahay caafimaad ama hasiyo insha Allah Ilaahay anagana toobada wanaagsan hana wada tuso insha Allah iyo tawfiiqda magaaladeen waxaan u jecelnahay mar walba inay noqoto magaalo amni ah wanaagsan horumarkeedana oo socdo balse inta diidan ayaa dhib ku hayso intaasna Allah ugu dacwoonayna iyo wixii kale markaas wax ka qaban karo insha Allah taala